xuquuqul insaanka wixii lagu kordhiyey iyo wax ka bedelidda goluhu ay sameeyeen waxay la tahay waa nood garaysateen golaha waxaan u soo jeedinayaa hindis sharciyeedkan wuxuu dhisayaa naafada qaranka ama hay'adda naafada qaranka hay'addan ma noqonayso keliya waddanka gudihiisa inay ka shaqayso waa hay'ad marna si gudaha ka shaqaysa heer caalamina u shaqaynaysa wax la wadaagayso hay'ado kale iyo waddamo kale marka xildhibaanada halkan fadhiya runtii aqoon-yahano ayaa tihiin sharcigaanna markuu halkan ka gudbo oo hindis sharciyeedkan hay'adda dhisaya markuu halkan ka gudbo waa meeshii ugu dambaysay oo lagu sixi lahaa marka waxaan u soo jeedinayaa in wixii wax ku darisa weli wuxuu marayaa hadda akhrintii labaad waxaan dhihi lahaa dib inta loogu noqdo si loo waafajiyo keliya soomaaliya ma ahane meelaha kale uu aadi doono loo waafajiyo wax badan in la soo baaro xildhibaanada qaar halkaa fadhiya waxay ka dhawaajiyeen hay-addan hore inay u jiri jirtay way jiri jirtay hanti qaran oo ay lahayd waxaan u malaynaa Shalema Kaza Babalaar waxaa iska lahaa naafada iska lahayd marka waxay la tahay in wax badan annaga aan soo ururino aan maskaxdaanada si fiican u shiilno lagu soo kordhiyo maxaa la yidhaahdaa xoogga iska lahaa naafada xoogga dalka iska lahayd soo sax ma aha marka waxay la tahay guddiga inaan ku saacidno ama aan ku kaalmayno inaan wax badan intaan soo ururino lagu kordhiyo si hay-addu ay u noqoto mid ka shaqayn karta gudaha iyo dibaddaba runtii aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinayaa kulanka annaga maanta wuu noo xiran yahay